shiyo markacad gala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti marka insha Allah yaa lihiloobin hala share gareeyo tu kale aan rabaa inaan ka hadlo hadduu alla yiraahdo taasi oo ah madam 367 qof adu 370 dhe maasha Allah kelmado badan baa maad aragtay heede dadka ayna soo dhahaan hadalo badan bay aadan waxay ka dhahaan maad aragtay waxaan rabnaa inaan maanta uga wala jawaabno cid kastoo na daawanaysa haddii aan daawanaysiin aadan waa ninkayga weeji ciddii garanaysa wayna garanaysaa ciddii ay garanayna imikana barta haddaba aadan waa nin jareera weeji waa ninkayga aniguna naag Soomaaliyeed baan nahay oo jilicsa dhahdin markaas waa ninkaygi weeji saas ina loo ogaado weeji nin saaxiibkayga maaha waa ninkayga meheras ku kaaya qabnaa 3 sanadoodaan qabnaa dadkina garanaysa wayna garanayaan ciidina garanayna imikana barta ta kale noqotay aadan waxa dhahdeen dhaga ayuu duran yahay maad aragtay Soomaaliya inta afligaadada ka hadasha maad aragtay waxaan aniga موضوع aan ku soo dhaxdaraya aawe idib dhagahay dadka ka hadlaan kani ma aragtay dhaga maaha waa sidaas weeji hadaad fahmaysiin ma aragtay dhago aadan waa nin muslina weeji ibna muslim abi waa muslim hooyadu waa muslim waa nin Soomaaliya وانين جرير وينا ويجي ما أركتي أو لانديرا كنا نفتوا مركا دقة هاسي هذا دقة أدورت معها ودقة وسا وحدي عدي ما أركتي هذا لدا مركز فافينيسا وحن كهالليسا أنبلا وخنيس دقو دوراني هاي محبو دوراني هاي مركز سداس الربا إنيس لو أوجادو aadan waxaan rabaa inaad dadka tustid sidaad u xiratid dhagahaaga hadda uu ku bilaabayna barnaamijka inkastoo caaw mawduucaas inaan ka hadla aan rabin mawduuca man rumina ka hadla laakiin Soomaaliya wiil Soomaaliyeed oo walaalkeena oo aniga dadki kana soo qad aadan adigoo ma aragtay mahadsan soo qabo لأنه دتك الصومالي ده ما أركتي قارك حن وأفلقاد حنيهين ما أركتي دت بدنا أنا دهاي ما كل هذا الشينا دتك ما أركتي دتك ما كل هذا الشينا ما أركتي أفلقاد ده حن وذا مركاد دتك أفلقاد ده حن وذا وكاس آدم دقيسة وحدي مركاد دقيسة آدم ومدورنا دقيسة وأنا سدا لو أوجاد أنا وانين جرير ويج وانين جرير وين ويج أولانديرا أولين كذا لين ما شاء الله لين بنكات سالين أنا ونوحان هاي ناق عيسى هاي ما شاء الله ما أركتي أورف جبوتيان هاي الحمد لله ما أركتي قبيلة اسمه جورسن قبيل كمان جورسن وعين كاس وحن كو جورسد قلبي جيسان كو جورسدي إيو شعال كيسة ويهاي أنيقا يجعل كيجيون سيه أيام كبورسدي مركز كنحو عدي حما كنحو نفتوا عدي حمانتا كشكينيسا أنا وحن كهلينا دتك حنحنا كهلينا أفلقادة دبضن له ما أركتي إيو دتك قار كودي أم بدونا إني قبيل بقسان قبيل كما فيعنو ما تقرأتين قبيلة الصومالية هاليسكا دافو هدي الصومالي اللي هاي ميل كستالي جوغا قبيلة هاليسكا دافو قولا كستو واد قرسن كرتا ني قبيل كاغهين او نيجيريانا أمبا سنغالا أمبا سوت أفريكانا أمبا ما أركتي فرسيسا أمبا وحو دونو هيدي لقرنين أيا لقرسدا او ما أركتي ماما كستي آبا كستي ساعة قوتمان ay kana hadal ay Soomaalidu oo dhan ma aragtay laba is arago ceeb lahayn ay isdhahan marka nin Soomaaliya heede oo ashhaadanaya oo diin muslina ku dhashay
oo Soomaali weyn ka dhashay diinta iga maanacday inuu ninkayga noqon amba inaan dhaho heedha naag ciisaan hay oo ima guursan karay waa diintee taasi taasi waa xalkee weji markaas dadka waxyaabaha xun ka hadlaya maad aragtay waxaan inaga baryaynaa in aflagaadada la joojiyo haddii kale waxaas idinkaa lidin dhahaa waa wada kartiin wata meeshaan idinla gaarta arkaynaa waan ka xunnahay ma rabin caawa inaan ka hadalna anaga mamduucaas waa run mamduucaas waxaan rabnay inaan mar kale insha allah aan ka hadalna malaakiin maasha allah dadkii xumaaya Soomaalida ku jirtay ayaa maad aragtay intaana gaarsiiyey maad aragtay aflagaadadoodii ayaa batay hadaladooda batay aadanna dhagaha muuduran saad u ogtihiin aadan dhagaha ma durno waa nin muslim oo islaana fashion allah dhagahan waa fashion weji cidii garanaysa ayaa garanaysa maad aragtay meesha laga iibsadana dad doonto waa inay tilmaami karaya maad aragtay waa dhago heedhe sidaas iskugu dhagaysa waa sidii bilada la dhahama ya bilada la dhahaa birqabatada oo birqabato kale markaas heedhe taasi ota waa inaad ka maad aragtay stop aad ka joojisiin taasi oo kale maad aragtay waxaan kaloo sheegay maad aragtay aflagaad dadkan kale jareer weyn aflagaadada amba ku haya amba raba inay caayaan maad aragtay amba dhaha maad aragtay waxyaabo xun ka sheega naagtaas sidaa u eeg waa ayo amiir cadey markaas anigu qabaa maad aragtay aniga ninkayga raali kaga ah maad aragtay waa nin jareer weji naag ciisaan nahay oo laandheeraan nahay oo qalanjada laandheer haddii la dhaho heedhe oo ah qalanjada 2020 markaas Soomaaliya waad ku mahadsan tihiin inaa bas ana baratiin ayaa fiican laano dadka badankoogu nama baranayaan maad aragtay aniga ninkayguna waxaan isku soo guursanay magaalada Milano isku soo guursanay Italia gaaraan Milano marka leer Milano kulleen jecel weel oo qatar ah lontano jecel dhalay waliba isku fura jecel dhalay jecel waaweyn oo gacan leh maasha allah marka calafku waa taasi weeji maad aragtay calafku maad aragtay sidoo kala dheer tahay markaas heedhe waa inaad sidaa loo ogaado maad aragtay qabyaalada ha la iska dhaafo qabiilba qabiil ma dhaamo qofba qof ma dhaamo waad dhalatay qabiilkaaga ma taqaantay markaa dhalatay ciddaa ka dhalatay qabiilkaaga ayaa ku baray adiga horta waa tahay la dhahay inaad tahay og waad bahaa waa tahay la dhahay waa tahay baa lagu dhahay laakiin cid ayaa maad ogeyd waad dhalatay waad yarayd waxaad maqashay dhigtaad maxaad ku maqashay waa tahay saasaa tahay qabiilkaa baan ahay waad ku maqashay maxaad ku ogeyd marka aflagaadada ha la iska dhaafo iyo naaga maad aragtay views ku raadsanay intay youtube-ka soo fariistaan ay dhahayaan maad aragtay mid hadda ka hor maad aragtay tiri maad aragtay familkayga jareer ii diiday maxaa waxaan ii sheego maad aragtay hadhe qofka markaad hadlaysid maad aragtay waa ayo weji ayaa la dhahaa waa ayo markaas qabyaalada ha la iska dhaafo dadow please barnaamijkeega qudhigeega maad aragtay dada qabyaalad doona inay kusoo qaraabsadaan xalay xitaa waan u taataabanay oo la dhahay maad aragtay nin qabiilkaas aan rabnaa abaayo qabiilka ma noo ogay karaysaa anaka qabyaalad troppo difficile wejaanaka qabyaalad shaqo kuma lihin qabyaalada maad aragtay Soomaaliya soo burburisay anagu waxaa taaganahay viva Soomaaliya qof walbo meel walba Soomaali joogto ha noolaata taaganaanayo ma garateen markaas hadhe maasha allah ha ka socoto waxay ka shidan tahay maad aragtay waxay ka shidan tahay jareer ciise
بجري الوين يا عيسى كشدن تاي waakaas labadaa bay ka shidan tahay markaas wiil ciise amba gabar ciise oo maad aragtay haadha iga soo hor istaagtay amba i dhahday maad aragtay maxaad u guursatay ma jirto maad aragtay waalidkayga oo iga soo hor istaago oo ilkuma dhisayno ma jirto markaan dadkayga aan u leeymi doon dhahay ninkaabaan guursanaya mabruugaa lay dhahay horta maalinta kuwa maxaa lagu dhaartay maasha allah baa lay dhahay maanta oday haye yaad guursatay Soomaali okay waan ku duceeyay waakaas ka sheekay balka hor muu waalidkay muu dhihin yaa waaye ayuu yahay macnaha wuxuu isla waa xagee asaga muxuu ka cararay wallaahi aabahay wuxuu ka cararayahayd ajnabi buu ka cararayahayd yaad guursatay Soomaali okay ducadan kugu dhuftay maasha allah wax kale ma waran yaad rabtaa inaad guursatay Soomaali ducadan kugu dhuftay ducadina maasha allah 3 sanadood waan wala joognaa maasha allah waan wala dhaqanahay far iyo faraanti maad aragtay ayaan isku nahay bes maad aragtay cadow badan oo isku dayay taasi dhib male inuu soo kala dhex galo taasi dhib male bilaadanka maad aragtay cadow kasta uu iska yeelanayaa sax maad aragtay aniguna cid aan joojinay male marka Soomaaliyay naga raali naqda markaas dadka afligaadada wadaay afligaadadiina sidaas haadhe ku jooga haddaad joojineenina badiya markaas ya ma cid kastaba maad aragtay sida la sheegay haadhe maanta horta dadku way ka naxayaan qaarkood qaarkii lahaa dhagu u duran yahay ma khaniis miya maxay intaan hadda saaranaani maad aragtay waxaas iska dhaafa aniga bahalaan haystaa intaanaan iska surtaa marka qaarkood xaraga waaye kama dhigno inaan aan duranahay nambaradii kolen way xiran yihiin markaas kama dhigno inay maad aragtay qofku haadha uu meel kasta dolooshan karayo maad aragtay qof kasta meel kasta uu xiran karayaa markaas maasha allah dhib male hota adduunka waxaa la yidhi haddii lagugu mashquulin maad aragtay horumar ma gaaraysid ya markaas kollen barashadeedii maanta waanu isbarannay ayaan u maleeyaa dadka badankooda maanta waanu isbarannay ciddaan nahay iyo cidduu yahay wiilkaygu amba aan dhaho ninkayga cidduu yahay iyo anigu ciddaan nahay maanta waanu iswala barannay Soomaali weyn meel kastay joogaanba la'anno wiilkuma afrikaan baa qaari dhaha yaa ku qaba ninka ku qabo waa ayo isaga ala dhahaya maad aragtay naagtaa qabtay ma carab miya ya maad aragtay markaas haadhe taasi way naga wolo badatay hayd maad aragtay taasi aad iyo aad ayay nooga badatay hayd mar isaga la dhaho ma carabiyad buu qabaa maad aragtay anigu carabiyad baa noqday mar aniga maad aragtay cid kastiba maad aragtay ay dhahdo ninka ku qabo ma afrikaan baa waa wadankii war maxaa niga khaldan waa nin Soomaali waa shahaadanay u weji afrikaan ba awlaad baa loo dhalaa ya afrikaan ba awlaadaa loo dhalaa aniga haadhe waxaa la yidhi doofaarku baa la yidhi maxaa la yidhi doofaarku dhagorta ku taala maxaa la yidhahdaa doofaar bu hamisa dhagorta ku taala may takalu eegaaba la yidhi haa adigu wax sidaayay ahayd maad aragtay naag gabadh maad aragtay hadda ka hor igu cayday maad aragtay reeraa ku qaba malaakiin waxay hilowday awlaadda ay u dhashay haadhe oo maad aragtay Soomaali hayn muslimna hayn maad aragtay oo awlaaddeeda ay aabahood meel ay ugu hagaajiso ay jirinba maad garatay markaa baan dhahay walaalay haadhe aniga ninkay qabo nin Soomaaliya beri hadduu lacala iga tago ilmahayga waa ilmo Soomaaliyaan geyni Muqdisho waa meel Soomaaliyeed ya amba ummad Soomaaliyeed aan dhahayaa wiilka hebel baa dhalay
waa lay soo qabanaya aniga ilmuhu iga dhalo malaakiin aan dhahay adiga ubadkaagan maad aragtay afrikaan weeji xaggee geyni waddankee geyni ayaa aqaanaba cid taqaanto ma jirto cid taqaanto maba jirtaba wallaahi gabadhii shib bay dhahday la'anno anigay rabtay inay igu caydo jareer ubadkaygii aa maad aragtay heedhe afrikaana oo jareera bilaa aabbahood la garanayn markaas heedhe dadkeenan heedhe waxay iska aqaaniin inay jareerta wax ka sheegaan jareerta waa dad muslina weeji waa dad ilaahay aqli iyo maskax ilaahay siiyey xoog waa dad shaqaysta weeji tuug maaha wax ma dhacaan wax ma nahaabaan waa dad ehlu salaada waa dad diinta nigaga horeeya marka la eego maad aragtay jareertu waa dadka maad aragtay Soomaali san weeji waa dadka cid dhagar dhiig gelin weeji waa dadka Soomaalinimadu ku weynta waa dadka Soomaalida jecel waa dadka wanaaga jecel waa dadka Soomaali oo dhan jecel weeji markaas تكورها جوجيا أمة صومالي أمة المحمد بان ولا نهاي عربا ما أركتي أو هذا هبلي هنا قميستا أو دباتيا وما أركتي والله دسا قبر صوماليات دبتو كوي ور ما دويسين نيكا عرب كي قبر صوماليات لو دسايو ور لو ما هيو قبر صوماليات من السودان يا لغو دريا ور ما دويسين ور لو ما هيو wuxuu ku waxaynayo wuxuu ku dhibaateynayo ani waxa ii dhaama nin Soomaaliyeed aniga ii dhibaateyno nin haqanaasi dhibaateynaha ninkan Soomaaliyeed Soomaali baa iga qabanaysa nin haqanaas cidiga ma qabanayso xisaabta taasi ku darsada laakiin markaan maqashiin gabar Soomaaliyeed Turkiya guursaday gabar Soomaaliyeed Suudaaniya guursaday gabar Soomaaliyeed Afrikaana guursaday marka maxaa gabar Soomaaliyeed qabiilka waa guursaday waa laangaab waa la maxay waanan xishooda laakiin aad ka hadlaysiin tukasta wala laangaab qabiil kasta uu laangaaban yahay hata laangaabka xagu ka yimid kelmadda laangaab iyo laandheer حاجة كتمد حاجة كتفيرتي لانجاب اللاندير حاجة كتفيرتي آدم يجي جوا ما أقدر سنة هرت وح أركت عم تقنا لانجاب كي لاندير كان يجي جوا ماشي كتمد هذا الصومالينا واللانجاب محل عليه أفر لا تسعى والدلاء وعلى قرحية ضلوا لفتا ذلك ورا لما شدوا ولو سمي هاي واحد دليل واحد جليع هنقض جليل هنقض واحد دليل جليل هنقض جليع هنقض هذا معناه ده عد لانجاب لو شيء كرم لهن ولو سميها لما شدوا ولو سميها هاي صومالنا لانجابا هذا يوروب توارتي مركلي ما دي مالهن غير قلبتك صومالي محكته وحبا زيرو because إذا زيرو سكليك سما محي صومالي صومالي غير قلبتك دينعو زيرو وكته because إذا معناه ده زيرو سكليك markaad aad isburbursid isdishid isbahdishid aad dhulka isdhigtid dee adoo dhulka yaal haddaad qaf u timaadid dee wuu ku legdi soo maaha sax marka anaga dhana laangaabka caalamkao dhan meel walba waa ninkaa maqlay marka dadka laandheere laangaab ku faanaya Soomaali waa wala laangaaba hadda fiiri nin Soomaali ah haddii kula dagaalayo haddii Eritrean dagaashaan Ethiopian ma ku helinayo because wuu baqaya laangaab waay هذا أفغانستان إزدقاشان يعني ني صومالي كوما هيلينايو لكن أيغا واسكوكا تيغاين يوكو سكوكا تيغاين ولا ندريال لاندير ساسالا لاندير نمتاسوا بالكا ورما لاندير نمتاسوا marka heede walaalay heede halagu fikro ma aragtay horumar see loo gaari lahaa Soomaaliya sidee loo hagaajin lahaa lagu fikro tuugtan iyo dadka wax leenaysa sidee loo qaban lahaa lagu fikro nin walaalka baad arkaysaa oo agtaada lagu dilayo waad iska aamusaysaa ma sheegaysid beritoole laandheeridaadu maxay kugu taalaa dhiiggii walaalkaaba maad aragtay aad ka talaabsanaysaa laandheeridaadu xagee ku taalaa
reer Landheele Landheer ma jirtay maad aragtay isku wala mid aa leeyahay eego dadku waxa u sheegtaa numberka koraan ugu soo qoray labada number numberka wiilka iyo numberka oo hooyadiisba yarkeen markaas hade reer Rangab ya maad aragtay reer Landheer iyo reer Landheer baan jeedaa qofka laankiisa dheeri ayada ku dhibco qofkan laankiisa qofka dheeri asaa ku dhibco wakaas qof laankiisu dheeraysa ku dhib qaba asaa ku dhibco laakiin waa la wala simeeyahay Soomaalinimo waxa la isku qabsado Soomaalimada waxa lagu wala qabsado Soomaaliya nahay ya luqada inaga wala dhaxaysa qabiil inaga ma dhaxayn karto laakiin fiiri qabyaalad inaga ma dhaxaynayso ani qabiilku ma soo korin fiiri marka qabiil intaan ku bartay aadan iga raacin noqo qaali qabiil intaan ku bartay aniga qabiil ma aqoon meel qabiil lagu hadal hayana ma jirto laakiin waxaan arkay ma aragtay qabyaaladu inay suntu meel kasta ay soo galayso ilaa Yurub ay soo galayso Yurubna ay ugu daran tahay ee qabyaalada hal iska dhaafo aniga ficil baan u guursaday ninkayga ficil aan guursaday iyo jacayl anaga hadda ka hor maartay anagoo badan maartay oo Soomaali ah meel imaan marka macnaha iyo waxa isku dhex jirnay Afrikaan iyo Eritrean ma gooni u baxnayno Soomaali marka anaga geesa u baxnay may anaga Soomaali ninkii cadaanka soo baday u dhaay no wuxuu dhaay tutti Afrikaan wuxuu dhaay meel isla mara anagana ayaga waxa dhigay Afrikaanta gooni loo bixiyo anaga gooni u baxno ninka cadaanka wuxuu dhaay Afrikaanta dhan dhinac u baxa Afghanistan dhinac u baxa sidaas oo loo kala sooco markaas qalbigaaga qalbigaaga been u sheegto wala fiican been yaa la isku sheegin qalbigaaga been u sheegin beenta yaa la isku sheegin qalbigaagana been u sheegin Afrikaan baa la walayahay ما أركتي أفريقيان كبسو سكو مسكين كان جرار قبيل كجرار محاين قاها هاي ستا وخلط واحد دتكو كل غمايان هنو لقي داي والبعثة أنا كمان أنتي ما أردت ويل كان دباتي سنة إنا طلب حصداني سابانو أوي كيف كاس ويل كيلو أدير كيلو قبي والله ده وات أوجد آذن ناقة بالسوء عم بحسب ليش أنا نولي جيدو بالكورن ويكوبي واي markaas saade waxaan ka codsanayaa anigu ma aragtay beesha jareer weyne kor ha u soo kacdo kor u kaco kor ku kaadsha aan leeyahay beesha jareer weyne kor u kaadsha inaa la isqarqariyo maan aragtay 2020 kale jooga waa inaa maad aragtay ee gool noqdo qabiilka uu ka dhashay قبيل كنا قل ما تحي وقل ما تحي ايش قل ما تان كنا لانينا ما وينانينا انا كلمهنينا قل ما تان ku korinayna na isla xishooda wiil iyo gabaray qabyaalnimada la isku guursadayna joojiya adduunka waxa ugu xulmaad aragtay mid aad jirta mid kale aan ka dhaadhiciya dadkeena waxa ugu xulmaad aragtay ninka qabiilkaaga markaad guursatid waa cadowgaaga kuugu horay weji cid kaama qaban karayso eel kaama qaban karayaan faami kaama qaban karayaan waa ka kuugu xun marba lagu soo celinaya gabdhaha ooyaya gabdhaha rag xumeynayaan waa walla wabila watalla waa nin qabiilkooga weji waxa dhibaateynaya qabiil waxa ku tarahay gabadha ooyaysay maad aragtay ya ee dhibaatoonaysay ela ninkii uu saawi ugu suubiyay ninkii uu dhibaatay ninkii saawi galay waaya ayuu badan yihiin runta la sheegay waa in adeerkeedii qabiilnimo ay ku guursatay alore laakiin ninka markaad qabiil aad u guursan oo jacayl aad u guursatid haade dariiq baa laga marinayaa qaanuun uu yeelanayaa laakiin ninka haddaad tiraa qabiil aan guursanaya haadhe ogsoonow waa ka ku dilay weji ka ku dhibaateynaya waa isaga
marka Soomaali waa Soomaali maad aragtay Soomaali waa Soomaali midna caaro ma dheero Soomaalidu cidna caaro ma dheero أنا تيميا marka Soomaali waa Soomaali maad aragtay midna caaro ma dheeraya mahmaadaas meel kale ayay lahayd والسوق دي maad aragtay mahmaadaas ciisaha lahaa maad aragtay ciise oo dhan ayaa maad aragtay dhaha ciise waa ciise ninna caaro ma dheero malaakiin anigu waxaan leeyahay maad aragtay Soomaali waa Soomaali ninna caaro ma dheero perfect markaas avete sentiti tutti quanti Soomaaliya maad aragtay inakoos jecel oo magac wala haysana wanaagan ka talino maad aragtay qabiil yaa lagu mashquulin samafalnimada ka maad aragtay yaa lagu mashquulin qofkaasi waa jareer qofkaasi waa madhibaan qofkaasi waa qabiilkaas qofkaasi waa maxay anood qabiilo ma kala aqaani أنا بودي ديجا أنا بربرة aniga qabiil ma kala aqaaniba Soomaali buu yaa qofka Soomaali ku hadlaan waa Soomaali qabiil ma aqaan qabiil intana waa ku bartay dadka caaw ka aytimay baalka leefka oo wiilka maskiinka caaw inuu casheenin laga yaabo inuu casheenna laga yaabo balka waran anaga waa dhargana waan soo casheen waa dhargana aniga waa iska hadlooya idinka waa macna stresska iska bixinayso waxa laga yaabaa inuu casheen u qadin nina ku dhahay waa beentis inuu xiran yahay maxaa cadeynay waa telefoon Liibiya oo ka hadlaya waa u jeedaaba marka walaalka u baahan oo dhibaataysan go'an cadow ku jiro ma ahan inaad ku digatid ma aha inaad ku digatid ma aha waa wax laga fiican yahay wallahi billahi tallahi qol wax laga nasabnimad ma midgaan waxa la dhigi karaa ninkaas oo kale midgaan ma jiro midgaan waa mid walaalkiis guriga u diiday waa ninkii walaalkiis guriga u diiday oo asagoo dhargan walaalkiis ku jaasjaas nin xiran 2017 inta ku taala 17 ila haddeertaan u xiran yahay caraba haysto hadduu ilaahay ku roon yahay wuxuu ku leeyahay waxa raashin fiican cunaa jimca ka jimco telefoonka silac waa ku dhahay lama helaayo lacag horeeto waa leega dhaca u dhahay waa sidoo sheegay haddeertaan carabki intaas u xiranahay alcamun waxa ku soo gabagabowdo dhahay bar bixi barna waan ka daayay ee walaalay Soomaaliyeed codsigeyga gaarsiiya codsigeyga hala gaarsiiyo codsigeyga hala gaarsiiyo marad maqshin kan dadka la soo biray codsigeyga hala gaarsiiyo yiri hala gaarsiiyo qofkii caawinaya telefoonka hooyadiisa wuxuu ku qoran tahay shaashada telefoonkiisa asaga oo Liibiya joogan shaashada ay ku qoran tahay qofkii doonaya inuu caawiyo ha caawiyo ha ka wac numberkaas qof walbo wuxuu Ilaahay ugu soo qaado aniga iyo xaaskeyga wixii Ilaahay noogu soo qaado ka soo qaad Ilaahay baa iskale maamadaas waa u direena taasana kay noo gaartay waa balan ahdi Ilaahay aan ka qaadnay marka barnaamijkaasi taasi waa sidaas tii kalena maad aragtay ma sha Allah taaniya isagoon skin barnay maad aragtay biya maxay dabtay raali noqoho way biyaydin maad aragtay waan skin barnay tu kale xitaa duwaleera oo barnaamijkii kale ku saabsanaana inaan aan kala qaadano dadka waan jecelahay markaas wakaas waan skin barnay jareer weyne beesha jareer weyne ciise weyne iyo ciise weyne ilaaha ka weyn laak ilaahay ka weyn ma sha Allah maad aragtay malaakiin saan yani ay isku guursadeen iyo maad aragtay si iskugu yimaadeen maalin kale noqon doontaa barnaamij dheer waa barnaamij dheer kama hadlayno taasi yani hal isweydiiyo calafku meeshuu jiro ilaa maalinta kuwaas barniin maad aragtay ka sheekeen doonaa ma insha Allah taasi calala barnaamij kale waxaan doonaa saan isku baranay waxaas maad aragtay adoo ala ka noqdo markaas yaana lagu mashquulin maad aragtay ya kulleen maad aragtay uguman horeyno aniyo maad aragtay saygeygu
waxaan filanayaana maad aragtay dadka isqarinaya maad aragtay inay kuna shaaca soo dhigaan ayaan jeclahay maad aragtay amba dhumasho ma fiicno ninkaaga ku faan luqluq maro laazim laamigi aka ya markaas taasi waa dhandhe maad aragtay taasi waa dhandhe dhan kale haddana jirto walaal soomaaliyeedow markaan aan galo xagga barnaamijkayga maad aragtay ku qabso ku qadimaysid annaga hadda barnaamijna kuma guda jirno laakiin waxyaabaha khaladada ay dadku waxaynayaan ayaan rabnaa inay maad aragtay aan dadka aan u saxno maad aragtay haddii ayna maqlayaan dadkii eeg anaku xalay toole maanu seexan saaka misadii baan seexanay aadan wallahi 10kii subaxnimo maxaa lagu dhahaa 4 saaca subaxnimo ayaan seexanay anaku ilaahay nagu ogaa soomaalida maad aragtay badankooda qaar heedha dad badankooda dhanna maad aragtay wayna ogyihiin maad aragtay la-aan waxa caddaynoo ah telefonada aan u dirdirayna dadka iyo sidaan wax iskugu xiriirinaynay inuu barnaamijkaygu barnaamij jiro yahay maad aragtay caddaynaysa laakiin waxa mashaakila oo dhibta nagu haysta ah maad aragtay walaalooy inaad naga caawisiin aan rabnaa anaku maad aragtay waxaan nahay dad maad aragtay heedhe qoys isku keen baan nahay maad aragtay qof kastoo meeshuu joogo aan dadka siinaynaa maad aragtay gabadha ka siinaynaa ee waxyaabaha khaladaadka ee la waxaanaya in layska dhaafo fiican haddii kale hadha waxaa iman doonta maad aragtay wixii qalada amba maad aragtay wixii aan garan weyna in anaku iska dhaafno dhici doonta ciddii aan garanayno aynu helno inaan anaku aan siino maad aragtay qofku u qalmo iyo marka taasi oo ah dhibyaalaha jira qofkii imooga magac buu ku qoranayaa maad aragtay magacna buuggii baa ugu qoran maad garat magacna buuggii baa ugu qoran buugagaa ugu qoran magacna ya dhibtaas taabaa naga haysataa dhibtaa weyni waa halkaas haddiina la maqlayo dadka barnaamijkeega ku xiran haddiina la maqlayo okay wiilkii libya ay codka u soo tabi wiilasha aduu jaanis haysto wiilkii miya uu ka go-ay uu soo galo wiilkii dhibaataysnaa hadduu soo galo intaas wiilkii dhibaataysnaa insha allah waan u soo bandhigi doonaa maad aragtay marka inta nagu haysta iimoogii waxaa ugu qoran raqam baa ugu qoran waxaan ujeedaa magac baa ugu qoran maad aragtay amba boqortooyo amba jeceelo amba ubaxyuu dhigdhigayaa amba maad aragtay wuxuu ku qorayaa maad aragtay hooyo jecel aabba jecel walaal markaas walaalay waxaan inaga rabnaa magacaaga halo asalaamu calaykum whatsappku iska xun yahay wiilkii